السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan toos u gali doonaa talaabooyinka lagu maareyn karayo ama lagu xakameyn karayo werwerka. Talaabada horeysa waxay noqonaysaa waqtiga aad werwerto waxaad isku daydaa in aanad degdeg ama u gaarin ama aanad talaabo kala qaadin balse laakiin aad samayso inaad kaliya intaad naftaada la baxdo aad la tagto meel degan oo aan buuq ahayn caqabad kalena kaaga imanaynin buugi qalina qaadato dadna aad isweydiiso waxa sababay werwerka ogaanshiyaha waxa keenay werwerku oo la ogaada ama laga warqaba waxay keensataa in qofku uu helo xal Soomaaliduna oo hore u lahayd xog la heliyaaba xal la hel xogtan inaad hesho waxa sababaya werwerkaagu waxay ku saalaysaa inaad keeni karto talaabooyin aad kula tacaamuli karayso oo aad kula dhiil gareyn karayso ama aad ku yareyn karayso werwerkaagaas marka taa laga imaado hadii aynu toos u sii galo qodobkeenan waxaad sameynaysaa inaad intaad buugi qalin qaadato aad hadii hore aad qolkaaga helaysid oo ay buuq ahayn meeshaas nafis ku dareemsid aad halka ku gaadho inaad ku falanqeyso waxyaalaha keenay werwerkaaga amba inaad baxdo walow inta badan la yiraahdo bax oo space-ka bedel halka joogtid bedel tag meel yaro nature-ka qurux badan hadii aanad heli kareynin tag meel degan oo haadi ah oo aan wax buuq ka jirin qodobka markaynu ka nimaadno qodob labaad baa isaguna jira kaasoo ku oranaya waqtiga aad werwersan tahay waxa aad isku daydaa in aad weyse qaadato oo aad weysaysato dadna laba ragcadood tukato dadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa sujuudooydo sababtoo taas waxay keensanaysaa in Ilaahay waa cidda ugu awoodda badan ee u caban karayso xaaladahaaga dejin karaysa in Ilaahay waa cabto subhanahu wa ta'ala hadii ay jiraan waxaad ka werwerayso ogtahay waxaad ka werwerayso oo dhibaatooyin qoys dhibaatooyin dhaqaale ama dhibaatooyin kale adduun ay yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga cabato inuu Ilaahay ka fardaamiyo oo ku fududeeyo dadna markaad aydo waxaad arki doontaa adigoo nafisay sababtoo waxaad arkaysaa inaad u cabatay khaaliqii adduunka oo dhan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qodobka saddexaad waxa noqonaya waxaad samaysaa exercise like isir fududee lug oo kala sameeyo inaad soo lugayso oo soo wareegto ilaa 1 kilometer ilaa kilometer half-kii oo kale tani marka xisaabaysaa marka socodku waa exercise-ka ugu wanaagsan ee qofka kobciya xataa hal abuurnimadiisa fikrad sidoo kale ka dejiya culaysyada dadka qaarkood baa waxay yiraahdaan ama psychologists-ka qaarkood socodku waa dawada murugada sababtoo jirkoo dhan baa shaqeynaya jirku waxa soo daayaa dheecaano dejinaya xaaladda nafsiyada qofka qodobka u dambeeya waxa uu noqonayaa in aad markasta ku dadaasho كحناشية إلهي سبحانه وتعالى waayo werwerada inta badan waxay ka dhashaan waxa weeyaan qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka fogaado qofka salaadii ka taga qofka oo cibaadaadkii kale ka taga qofka oo aan dhamaan wixii asaasiyaadka hay diinteena fartay dhan aan sameeynin tan oo keensanaysa in qofku qalbigu qalalo bila qanaaco qofku noqdo noloshuna u dhadhami weydo taas marka dama sababaysa inuu werwerku uu qofka laftigiisa dilaba